الحمد لله سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إله نقدق كوها ننصن ددكنا هنونية. إله نقدق كوها ليسن ددكنا هلية. ومدى برنامج كداوني ساعة ووحا رنتي كدعي مقالة بورمي اللين لياب له. وحا ومدى الصومالية دوكتاي بريها إنو كعدون كسعودو. كعدون كانوا هوري وجري وانا هاي وح قرصون، لكن أود دي إيه وقت جاي أوليه هاي. كعدون كان وأودر ستيت اللي يرد آمنسن. وحا عاو كونتن قبضود ورقية دمر بالي وعطيدي جامعة هي اسكولة اسكوغو تاجين ميلو دو دوكسيغا تركيغا. عبار مركي أهيد شنتي بركي قربنمو إلا يلحدي. واحد دعي مقالة روب وين أيا كدا أيا قيب كاملة. قيبتا إيا دعي دانيال داسي جوغين نمان أسكارا باقود دونتي نمان كان وحي أشيريين دانيال دي الحري وحي أي سمين لهايين يا وحي أيين لهايين وحي بارتلمام صديد هابليه نمان كي دانيال دوي كقدودين كوان الرساس باي فورين كوان دقحان باي كشيدين ماشي والا كلا ياعي والا كلا وردي waxa dhacay arinta aad maqlaysaan arintaasina ay daahsantahay adigu hadli maysid adu xuquuq ma lihid adu waxa tahay waxaan anagu rabna raac waana xaqiiqda dhabta ee Soomaaliland taagan weey waxaan umada u sheegaynaa walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri unsur akhaaka daaliman oo madluuman walaalka labadaba u gargaar marka uu baahdo heelo si ee laga gardaraya markuu isagu wax ku gardaroonayna ka qabo nimanka aad arkaysaan ee laascaanood ciidamada hubka geystay ee odayaashii iyo dhaqankii iyo aqoonyahanadii iyo culimadii leeyahay war anagu xarabnaa dhulka iyaga inay dooga baxdaan ayaa halkan dhalinyarada boorama joogta ee aan awood badan lahayn baa waxa ay sameynayaan ay ku xirxidhaan oo ay ku dhibaateeyaan ummadda barnaamijkan daawanaysa waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto meesha in adduunyada la gaarsiiyo oo xaqdarro badan ay ka taagan tahay oo dulmi ka taagan yihiin oo kuwii markaa sameeyay waxyaalahaasi hore oo ay kamid ahayd inamadii hore ee la xirxiray ilaa imika xaqdarro ku xiray yihiin inay ummadda ogaato oo ku hayso indhaha waxa kale oo walaalayaal caawa ajalad jirta la wareejinayay casha sharaf loo sameeyay wasiirka hore maaliyadda ummadda barnaamijkan dhageysanaysa nabigu wuxuu leeyahay amaanadu wala amaanay aakhiru zamaanka waxa uu horeeya ee ummaddu ay luminaysaa ay ka tagayaan waxa kamida amaanadaas waxaynu ognahay calaamatul munaafiq calaamadaha munaafiquna waa saddex haduu waramayo warbeen ku warama hadii la aamino khiyaama haduu ballan gal ballantii dib uga gal waxa walaalayaal u baahan ummaddu inay ogaadaan niman dhamo reebo qooyo cid walba leh waxa joogan baarlamaanka Soomaaliya ummad iyo midnimo ay ku dhaarteen oo kitaab quraana gacan ku saareen waxayna difaacayaan dad le ummad baan kala goynaynaa waxa caawa shirka ashada aad arkayseen ashada keenay oo diyaariyay ninka wasiir ku xigeenka labaad ee maaliyadda oo aad haydeen oo ummaddu wada daawatay maalintii ninka qanduufta lagu tufay ahaa baarlamaanka dhexdiisa waxaan ummadda u sheegaynaa waxa hadlayay nin lagu magacaabo Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa ninkii Muqdisho tagay ee loo sheegay la yiri tolka maxaad u qabatay ee xaqiiqda lagala hadlay cadhooday ee ummadda caayay u curaba sameeyay waxa hadaladiisii kamid ahaa oo uu yiri Soomaaliland cadow fara badan bay leedahay waxa hadaladiisii kamid ahaa nin jabhadii asanam la socdo Cabdiraxmaan oo Cali Layla inuu ilaa dadkii dhulka xoreeyay way gadabuus waxa laga dilay dad fara badan ilaa xeebta reerihii la laayayna maanta caruurtoodii ay nool yihiin kuwii laayayna ninkaasa kamid ah maanta inuu ninkii dadka gadabuusi laayay nin gadabuusi intuu soo fariisiyo yiraahdo kuwana kamid dhulka xoreeyay magadabuusa laga xoreeyay marka dhulka iyagu laayn ma laga xoreeyay marka ma isaaq waa loo xoreeyay runtii wax laga xumaado waxa ashada hadaladii ka baxayay arabtu waxay jilaadaan dadka wax lagu miisaamaa labadiisa yaryar waa maxay labadu fuaadihi wa lisaanihi imsaada aragtaasheeda nin lagu leeyahay waa professor waa nin aqoon leh waa magac leh ma uu labisan laakiin markuu hadlaa la gartaa damiin iyo aqal mid u yahay ummadda barnaamijkan dhageysanaysa waxaan sheegaynaa in arrimahaasi sumcad xumo u tahay beesha gadabuusi
waxaanu sheegaynaa kacdoonka Boorama inay indhaha ku hayaan halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Radio Boorama Somali Canadian TV wa anigu Xamed Cali Cilmiya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh